maanta ujeedadan isugu kiyeernay waa laba arrimood arrin ah wixii noo qabsoomay ee komishanka u qabsoomay muddadii uu joogay xilkan hayay iyo waxa soo socda qorshaha soo socda maxaynu ka leenahay qorshaha haddaan ku bilaabo komishanka doorashooyinka qaranku sidaas Siciid sheegay waa hay'adda u qaabilsan doorashooyinka diiwaangelinta iyo aftidaba hawlahaasuna waa hawlo uu siinayo xeerku oo sharciga dalku uu siinayo tiibaari ku guda jireen ilaa maantana ku guda jiraan waxaanu ku faanayaa komishanku inuu qabtay oo uu sameeyay diiwaangelin casri ah oo Afrika naadir ku ah ama markii ugu horeysay taasoo ahayd in buuda isha laga qaadayay sawirka waxa kale oo komishanka doorashooyinku ku faanaya inuu qabtay doorasho nadiif ah xor ah iyo xalaal oo beesha caalamka goobjoogayaashii caalamiga ahaa kuwii maxalliga ahaa idinkiina hor taagan aad ka markhaati furteen diblomaasiyiintii dalalka inaga caawiyo doorashadu ay dhammaantood ka markhaati fureen doorashadaas sidii loogu talagalay ee standardka caalamiga ah inay ku dhacday komishanku wuxuu dhammaan shaqooyinka uu soo qabtay budlig u ahaa waa sharci waddankanu sharci buu leeyahay sharci baynu ku dhaqanaa sharciguna wuxuu siiyaa xadidaad buu siiyaa limitation buu siiyaa komishanka markasta waxa xadidayay ama hagayay sharciga dalka u yaala iyo qawaaniinta waliba kuwa doorashada ayaa aad u xadidayay hogaaminayna waxqabadkii komishanka labadii sanadood ee ugu dambeeyay oo 2018 2019 marka ka bilaabo 2018 komishanku wuxuu diyaariyay qorsheeyay diiwaangelintii codbixiyaasha miisaaniyaddii iyo jadwalkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo ahayd mid isku sidkan oo markii ugu horeysay inay noo dhacdo ahayd oo ahayd golayaashii deegaanka iyo golihii baarlamaanka oo hal mar la wada qabanayo wuxuu la wadaagay dhammaan shaqooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiyada qaranka iyo beesha caalamka ee doorashooyinka inaga taageera si loo helo miisaaniyad lagu qaban karo ama lagu qaban lahaa dhamaystirka xeerarka oo la dhamaystiro iyagana komishanku wuxuu qabtay kulamo wada tashi oo lagu casuumayay xisbiyada qaranka ururada bulshada golayaasha labada gole iyo garsoorkaba ee qarankanu leeyahay oo lagaga tashanayo ama lagaga hadlayo casharadii laga bartay diiwaangelintii codbixiyaasha ee 2016 iyo kaar qaybintii iyo kaar daabicidii 2017 iyo doorashadii madaxtooyada ee 2017 komishanku wuxuu diyaariyay qabyo qoraalka xeerka doorashooyinka qaranka oo markii koowaad la isku dhafay lagana dhigay nuqul kaliya kaasoo golaha wasiiradu baaskareeyeen hor yaalana golaha baarlamaanka komishanku wuxuu la heshiiyey ama uu heshiis la galay shirkadda weyn ee Iris ID la yiraahdo Mareykanka ah taasoo qaabilsan qalabayntan casriga ee lagu galay diiwaangelinta iyo doorashadaba iyagoo uu heshiis la galay inuu ku sameeyaan audit ku sameeyaan shaqadii uu qabtay serverka iyo kombiyuutaradii shaqada lagu qabanayay inay audit gareeyaan heshiis baan la galay way audit gareeyeen report bay ka soo saareen reportka ka soo saareen wuxuu ahaa oo annaguna u dirnay inay eegaan kor u qaadista tayeynta iyo xoojinta qalabkan cusub ee aynu ku galnay doorashada maxaa ka qaldamay haddaanu qaldamina in kor loo sii qaado tayeyntiisa oo looga sii dhawaado inuu tayeyn cusub oo wanaagsan noqdo Iris ID waxay soo saartay warbixin baahsan markaa oo dhan taasoo ay ku koobnayd inay lagu tayeeyo si loogu diyaar garoobo doorashada soo socota isku sidkan iyo diiwaangelintaba oo diiwaangelintii mar labaad hadana la galo komishanka doorashooyinka qaranku safarro ugu tagay Nairobi si uu daneeyaasha arrimaha doorashooyinka uu u dardargeliyo shaqadooda loona xaliyo khilaafaadka markaa dhex yaala ee jiray
labadii 2019 commissionku wuxuu qabtay oo warbixintiisa aan idinku soo gudbinaynaa warbixintii ka soo baxday tayeyntii iyo auditingkii IRSID inaan u raadino shirkado qaban kara shaqadan oo tayeeya oo uga sii dhawaada halkii hore waxa ku guuleysatay shirkad South Africana koonfurta Afrika taas oo magaceeda la yiraahdo New Matrix taas oo habaysay oo tayeyntii casriyeyntii iyo nidaamintii iyo hanaankii farsamo ee diiwaangelinta codbixiyaasha iyaduna samaysay kula guuleysatay inay inoo dhamaystirto waana inoo dhamaystiran yihiin waana diyaar commissionku wuxuu diyaariyay hanaanka tababarada iyo habraacyada diiwaangelinta codbixiyaasha isagoo la kaashanaya khubaro caalami ah waxaanu soo bandhigeen tayeynta lagu sameeyay hanaanka farsamo ee diiwaangelinta codbixiyaasha commissionku doorashooyinka qaranku wuxuu qabtay tijaabo guud oo xisbiyada qaranka ururada bulshada iyo daneeyayaasha kaleba ay ka soo qayb galeen iyo dadweynuhuba oo lagu tijaabinayay kor u qaadista iyo tayeynta lagu sameeyay hanaankii farsamo ee diiwaangelinta oo markii aanu dhamaystirnay reportkii helay shirkadii dhamaystirtay waa in la tijaabiyaa shaqadii sax ma tahay aynu kontraadka ku bixinay mise maaha waxaanu ku tijaabinay markaa in diiwaangelin miniya la sameeyo oo ay ka soo qayb galaan dadweynaha waxaanay ku dhammaatay guul ayay ku dhammaatay xisbiyada iyo ururada bulshaduna iyo dadweynihii ka soo qayb galay iyo hay'adaha caalamiga ee daneeya iyaguna way ku qanceen tijaabadaanu samaynay commissionku wuxuu soo dhaweynayaa haddaba heshiiska kasta oo horumar kasta oo suuro gelinaya inay qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinkan soo socda ee isku sidkan heshiiskii dhowaan ay saddexda xisbi qaran gaadheen iyo beesha caalamku ku soo afjareen murankii caqabadaha ku ahaa qabsoomidda doorashooyinka waanu soo dhaweynaynaa commissionku wuxuu si gaar ah ugu mahadnaqayaa erkeyga gaarka ah ee midowda Yurub iyo qaranbixiyaasha oo xil iska saaray soo afjaridda khilaafkaas muddada dheer soo jiitameeyay waxa kale oo aanu ugu mahadnaqaynaa ama ugu mahad celinaynaa caawimadii ama taageeradii ay naga taageereen ee farsamo iyo dhaqaale ay ka geysteen diiwaangelinta codbixinta doorashadii 2017 iyo casriyeyntii ka dambeysay ee diiwaangelinta qalabkaanu ku samaynay oo iyadana xagga dhaqaalaha ay naga taageereen aad baan uga mahad celinaynaa commissionka doorashooyinka qaranka haddaba wuxuu diyaar u yahay inuu commissionka cusub ee soo socda uu si sifo sharciya ugu wareejiyo xilka howlaha aanu gacanta hadda ku hayno si ay howlahooda hore ugu bilaabaan muddada ka horeysana commissionka hadda jooga oo commissionkii afraadi shaqada uu sii wadayaa si sharciyana uu sii wadayaa waana diyaar barnay haddaba waxaanu sheegaynaa commissionka doorashooyinka qaranku wuxuu ku fadhiyaa ama ku yimaadaa sifo sharciya wuxuu ku shaqeeyaana sifo sharciya waa inay dadweynaha iyo stakeholderska dadkanu commissionkanu u shaqeynaya hay-adan jirtaa ee adbaanta hortaagantii waxay ku shaqaysaa waa sharci wixii sharciga baalmarsan marna ma aqbasho eedihii commissionka doorashooyinka qaranka loo soo jeediyey dhammaantood iyo xeerarka doorashada laga dacwooday commissionku wuxuu muujinayay intaaba dulqaad iyo inuu qarankan u tudho oo shaqadan xasaasiga ee uu hayo uu ku ilaaliyo halkeeda oo sharciga ku ilaaliyo waxaanan eedahaas caddaynaynaa inay dhammaantood baalmarsanaayeen xeerkii maxayday doorashada iyo habraacyadii kala saxeexdeen commissionka iyo saddexda xisbi qaran haddaba cidda maxayday waqtiga badan iskaga lumisay commissionka doorashooyinka ee arrimaha meherad ka dhigtay waxaa maanta muhiim u ah inay ka shaqeeyaan
fulinta heshiiskii saddexda xisbi qaran iyo daneeyayaasha caalamiga ah dhex maray. waxaanu halkaa ku caddaynaynaa wax kastoo baalmarsanaa sharciga oo aanu tusaale ahaan u soo qaadanayno inaanay mararka qaarkood gaf weyn ku ahaa komishanka doorashooyinka qaranka, iyadoo aanu tusaale ahaan u soo qaadanayo in mararka qaarkood lagu tiraabayey waxaan sharciyan qaban komishanka, oo ay ka mid ahaayeen oo kale inay doorashadii keliya ee ay qabteen komishanka doorashooyinka qaranku ay ku tunteen sharcigii oo marna aan suurtagal ahayn, inay xeerkii doorashada si badheedha u jeedheen oo waxyaabaha soo tiraabayana soo gaarayay, oo marna oo aanaanu ka jawaabin ee dulqaadkeeda u lahayn, oo marna aan xeerka iyo habraacyada meelna kaga olin, dhexdhexaadnimadii looga baahnaayoo ka baydheen, oo taana aanu maxayde u arkaynay hadallo baalmarsan sharciga iyo habraacyadii aanu kala saxeexanay. haddaba maanta oo taariikhdu tahay 8 bishii August 2019 maalin khamiisa, komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu doonayaa inuu shacabka reer Somaliland, xisbiyada qaranka, daneeyayaasha arrimaha doorashada iyo dhammaan ummadana dhegaysanaysaba in aanu la wadaagno qabsoomidii wakhtiga doorashada. sida aad la socotaan, qodobka 9aad ee xeer number 2021 ayaa komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya in markay 120 maalmood ka harsan tahay maalintii loo cayimay ama loo asteeyay doorashada inuu ka hadlo komishanku. xeerkaas ayaa waajibaad kaga dhigaya. haddaba markaanu aragnay in xeerka doorashada qaranka ee lagu geli lahaa doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha wakiilada aanay weli diyaar ahayn oo xeerkii hor yaallo golihii wakiilada, 2 dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan weli qabsoomin muranadii taagnaa daraaddood, 3 sida uu dhigayo qodobka 9aad ee xeer number 2021 oo komishanka ku waajibinaya inuu cayimo wakhtigay qabsoomayso doorashadu 120 maalmood ka hor maalinta doorashada loo asteeyey. 4 isla markaana uu arkay duruufaha farsamo, sharci, siyaasadeed ee ku gadaaman qabsoomidda iyo geedi socodka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. sidaa daraaddeed, komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu caddaynayaa in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ee uu qorsheeyey in la qabto 12 Disembar ama u qorshaysnayd in la qabto 12 Disembar 2019 oo ah bil ka hor dhammaadka muddaxileedka golaha wakiilada ee markaa fadhiya, aanay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba, aan ku celiyo farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoomi karayn. waraaqdii waan u qornay oo qodobka waxa ku jira in madaxweynuhuna aanu gaadhsiino waraaqda uu isaguna ku jawaabo digreeto muddo ku dhan 15 cisho. waraaqdaasuna way naga baxday, madaxtooyada way u tagtay, idinkana waxaanu idinka doonaynaa inaad gaadhsiisaan dadweynaha. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.